Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay walaalahayga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan. Oo walaalkiina maanta waxaan idiin wadaa qisa oo cibro qaadasho mudan oo ku saabsan sabarka. Kusoo dhawaada walaalayaal. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka, fadlan subscribe saar oo kusoo biir ka mid noqo saaxiibada kanaalkan ku xiran. Oo aad ayaad u mahadsantahay haddii aad intaas samaysay. Muddo 6 sano ah ayaa kasoo wareegtay markii ay isguursadeen Cali iyo Sacdiya. Wax caruur ah iskuma aysan dhalin. Habeen habeenada ka mid ah, iyagoo is ag jiifa ayay sheekaysteen. Waxayna isweydiiyeen iyagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmo u heli la'yihiin. Sheekadii ayaa ku dheeraatay, waxayna isku beddeshay inay buuqaan. Ugu dambeyn, waxaa lagu heshiiyey in dhakhtar bere ay u tagaan si ay u ogaadaan dhibka dhanka uu ka jiro. Iyagoo qofna u sheegin ayay subaxii dhakhtarkii aadeen. Baaritaanka kadib, Cali ayaa waxa uu soo galay dhakhtarkii si uu natiijada baaritaanka u ogaado. Dhakhtarkii waxa uu Cali tusay natiijada baaritaanka, taasoo ahayd inuu Cali caafimaad ahaan fiican yahay, balse ay Sacdiya qabto xanuun isla markaana ay suurtagal ahayn in ay uur qaaddo sida ay dhakhtarku sheegay. Waxa uuna intaa ku daray in aan rajo laga qabin in ay ka bogsato xanuunkaas. Cali markii uu natiijada arkay waa uu murugooday, saasoo ay tahay haddana waxa uu ku shukriyay Allah. Dhakhtarkii ayuu u sheegay in uu xaaskiisa u wacayo si ay gudaha u soo gasho, laakiin waxa uu ka codsaday inuu dhakhtarku u sheego in Sacdiya aysan wax xanuun ah qabin, dhibkana uu yahay dhankiisa. Dhakhtarkii arrintan uu sameynaya waa uu ka diiday Cali. Wuu ka adkaystay ilaa ugu dambeyn uu dhakhtarkii ka oggolaaday. Waxaa loo yeeray Sacdiya. Markii ay gudaha soo gashayna waxaa loo sheegay in uu xanuun qabo Cali, kaas oo aan la rajaynayn inuu ka bogsado, isla mar ahaantaana aan suurtagal ahayn inay ilmo dhalaan, balse iyadu fiican tahay. Cali markii uu warka dhakhtarka ka maqlay oo uu aamusay, waxa uuna fiiriyay Sacdiya isagoo wejigiisa ay ka muuqato sida qof quustay oo kale. Lamaanihii waxay ku laabteen gurigooda. Arrintii ka soo baxday baaritaanka labadooda si tartiib tartiib ah ayay ugu fiday deriskooda iyo dhammaan magaaladii ay ku noolaayeen. Qaraabadooda iyo saaxiibadooda noloshoodii ayay sii wateen iyagoo dulqaadanaya, balse markii ay 5 sano kasoo wareegtay xilligii ay sameeyeen baaritaanka, Sacdiya waa ay dulqaadan weysay. Waxayna u imaaday Cali si ay ugu sheegto go'aankeeda. Waxayna ku tiri sidan: Cali, aniga iyo adiga waxaan isqabnaa muddo 11 sano ah. Ilaa haddana iyo intaasna wax caruur ah maanan helin. Aniga weligay kuguma soo hadal qaadin furiin, balse qoyskayga iyo saaxiibaday way igula taliyeen mar hore in ka badan inaan furiin ku weydiisto. Ana kama yeelin sidaas, anigoo og inaad madhalays tahay, laakiin markan waxay u muuqataa intaas in ka badan inaan sabri karin. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad iska kay furto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad. Qisadeeni waxaan jeclaystay maanta inaan halkan ku joojiyo. Qaybta kalena ma dheero, waxaad ka helaysaa kanaalka maalmaha fooda inuu soo haya.